gaari badan ku gubtay goobta uu qarax ka dhacay waa afaafka hore ee hoteelka lagu magacaabo Hilaac UK oo uu ku garab dhagan yahay hoteelka weyn ee Maka Al-Mukarrama sida u jeedaanba hoteelka Hilaac UK aad ayuu u burbursan yahay sidoo kale waxa burbur kala soo gaaray hoteelka Maka Al-Mukarrama goobtan aad u jeedaan ee burbursan waa goobo ganacsi xilligu qarax dhacayna waxay ahaayeen goobo shaqeynaya oo dad fara badan ay markaa wada joogeen goobta uu qarax ka dhacay oo ah wadada Maka Al-Mukarramana markaasi waxay ahayd wada aad u saxmad badan oo ay dad fara badan markaa joogeen sidoo kale wadadan waxay ahayd xilligu qarax dhacay wado aad cariiri badan oo baabuurta aad ay markaa u buux dhaafiyeen oo waxa ay laayeen meel ku kala socdaan marka dhimashada iyo dhaawaca lama qiyaasi karo inta ay marka indhaheenu arkeen waxay ahaayeen ilaa 4 ilaa 5 qof oo dhaawac ah halka dhimashadu ay ahaayeen 2 qof meeshan gubanaysa waxa lagu magacaabo hoteelka Kuwait Palace oo marka ka soo horjeeda hoteelka Maka Al-Mukarrama iyo hoteelkan kale ee Hilaac UK lagu magacaabo gabi ahaan hoteelkan aad ayuu marka u gubanaya wali laamaha amaanku waxa ay marka u diidan yihiin bahda saxaafadii dadka kale inay galaan oo waxa laga shakisan yahay gaari kale in uu meesha marka ka qarxo waliba laamaha amaanku waxa ay tilmaamayaan gaariga oo waxay leeyihiin hal iska ilaaliyo gaarigan ayaa ah mid marka waxyaabaha qarxa uu marka saaran yahay wixii faahfaahin oo intaan dheeri ah waa idin la soo socodsiin doonaa waa ay adag tahay in aad halkan ogaato khasaaraha rasmiga ah ee dhashay